السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كان dhalinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno hay'adaha amniga deegaanka iyo mas'uuliyiin kale ayaa kulan kula yeeshay magaalada Jigjiga ururada dhalinyarada deegaanka si loo sii xoojiyo amniga deegaanka kulankan oo ay ka soo qayb galeen xafiiska nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida isla markaana loo qabtay ururada dhalinyarada deegaanka ayaa lagaga hadlay sidii dhalinyaradu ay noqon lahaayeen kuwa ka qayb qaata amniga deegaanka iyo doorka ay ku leeyihiin nabadgelyada si dhawaana ay ula shaqeeyaan hay'adaha amniga ee deegaanka sidoo kalena ay dhalinyaradu u noqdaan kuwa ka foojignaada mandoriyaasha iyo waxyaabaha mustaqbalka diila oo ay u noqdaan kuwa mar walba ka fikir sidii deegaankooda u horumarin lahaayeen shirkan oo ay ka soo qayb galeen hoggaanka nabadgelyada ee dawladda deegaanka Soomaalida mas'uuliyiinta xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee heer deegaan komishanka shaqo abuurka iyo horumarinta shirkadaha iyo qaar kamid ah saraakiisha ciidamada deegaanka maamulka magaalada Jigjiga mas'uuliyiin kale oo heer deegaana hoggaanka nabadgelyada dawladda deegaanka Soomaalida Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo furay kulankan ayaa sheegay in dhalinyaradu ay tahay lafdhabarta horumarka deegaanka iyo awoodda bulshada loogana baahan yahay inay ka qayb qaataan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka xukuumadana ay ka go'an tahay in dhalinyarada ay ka saarto shaqo la'aanta waxaan rabaa inaan si kooban u sheego ujeedada shirkan ujeedada shirku waa inaan ka wada hadalno doorka ay dhalinyaradu ku leedahay amniga ujeedadaas ayaan maanta isugu nimid laakiin kulli marka sidaas loo dhigo waxyaabo badan baa ku dhex jira waana arrimaha aan ka wada hadli doono weeye markaan dhahno doorka ay dhalinyarada ku leedahay amniga waa amniga magaaladan iyo amniga deegaankeenaba waayo intan oo dhalinyaro ah oo meeshan fadhida way matali karaan dhalinyaradii kale ee deegaanka dhab ahaan annagu waxaan aaminsanahay in ay dhalinyaradu tahay xoog nabadeed in ay dhalinyaradu tahay xoog horumar in ay dhalinyaradu tahay xooga mustaqbalka dadkan iyo deegaankan ayaan aaminsanahay mar haddii ay aaminaadaasi jirto marka waa in dhalinyarada la iswaraysto oo la isu yimaado oo la iska warqabo oo laga xaajoodo sidii xooggaas mustaqbalka dadka iyo dalka aan ku tilmaanay loo kobcin lahaa xaaladiisa loo ogaan lahaa waana midda aan maanta isugu nimid intaas haddaan kaga gudbo waxa aan ka aaminsanahay dhalinyarada waxaan rabnaa inaan in yar idinku baraarujinno xaaladda guud ee dalka iyo deegaanka iyo shaqooyinka hadda ay xukuumadda ku mashquulsan tahay tan dalka haddaan ku hormaro kolley si guud waxaan ugu jiraa xilli kala guura xilliga kala guurkiisna duruufo gooni ah iyo dabeecado u gaar ayuu wataa marka in dhalinyaradu iyo bulshadoo dhan la isla ogaado xaaladda waddanka iyo xaaladda deegaanka mar kasta waa laga maarmaan taas waa taas tan kale ee deegaan ahaan waad ogtihiin deegaankeena waa deegaanka ugu nabdoon dalka ilaahay ayaan ku mahadinaynaa shaqo badanna way gashay arrintaas oo duruufaha iyo culaysyada deegaanada kala haystaba halkanba way ka jiraan ee sida loo maareeyay ayaa ka duwan sida meelaha qaarkood loo maareynayo waxaa deegaankeenna kolley muhiim u ah in uu helo xasilooni siyaasadeed oo garan kartaan faa'iidada ay u leedahay amniga taas waxa weeyaan waa in xukuumadda iyo xisbiga talada haya uu ka midaysnaado aragti ummaddan mustaqbalkeeda lagu hagayo amnigeeda lagu sugayo lagu horumarinayo taas oo jirta deegaankeenna waxay keentay xasilooni siyaasadeed ay keentay waxaa kaloo xasilooni siyaasadeed keenay in xidhiidhka inaga dhexeeya deegaanka dowlad deegaanka iyo kan federaalka dowladda dhexe uu yahay mid miisaaman oo ku qotoma shuruucda dalka u taalla oo haddii hadda ka hor xidhiidhku uu ahaa xidhiidh isu yeedhin iyo faragelin iyo dhibaateyn ah hadda taasi ma jirto waxa weeyaan xidhiidh wanaagsan oo miisaaman oo doorkii dowladda dhexe iyo doorkii dowladda deegaanka Soomaalida ay kala qeexan yihiin oo ah door istaageerid iyo wada tashi iyo iyadoo hal xisbi lagu wada jiro oo miiska xisbigaana la wada fadhiyo
oo danta deegaanka kaliya ama ta dalka xataa aynu ka arriminayno ayaa waxay keentay xidhiidh miisaaman oo keeni kara xasilooni siyaasadeed waxaa kaloo xasilooni siyaasadeed keena deegaankeenna in mucaaradkii hubaysnaa uu heshiis lala galay bisayl la muujiyey ilaa casmaro loogu tegey si fiican loo soo dhoweeyey ciidamadii qaar ciidamadeenna ay ku biireen qaarra dhaqaale intii tabar ahayd la siiyey si ay noloshooda dib ugu soo kabtaan oo ay bulshada u dhex galaan inkastoo marmarka qaarkood laga yaabo inaad aragtaan in laysyar xagxaganayo siyaasadda laakiin si guud xeerka yaalla waa xeer wanaagsan oo aan laysku kala xtagaynin oo xagxagashadaasi ayna dhaafaynin wax uun mataqaanaa siyaasiyiinta laga fili karo oo aan mustaqbalka deegaanka aan saamayn karin xadkaana inaan la gaari doonin ayaan aaminsannahay iyada oo kollaba dee dadka dabeecaddiisu lamada xakamayn karo laga yaabo inay jiri karaan xoogag inoo wada dhan kale oo dhan isxagxagashada intii la dhaafo xasilooni darri siyaasadeed inay timaado xoogag rabi karaa way jiri karaan laakiin ilaa hadda waxaa lagu guulaystay in la xakameeyo xoogagaas xasilooni siyaasadeedna la helo waxaa kaloo innaga muhiim oo deegaankeenna amnigiisa adkeeyey waa xuduudihii oo la adkeeyey weeyaan xuduudaheennii kuwa aan deegaanada dariska la leenahay dalka iyo kuwa aan dalalka jaarka aan la leenahayba si fiican baa loo adkeeyey goobihii muhiimka ahaa ee deegaankeenna oo ama buunto ha ahaadaan ama banki ha ahaado ama meel dhalisa laydhka ha ahaado ama shidaal ha ahaado meelo badan oo ah halbowlihii dhaqaalaha kaabiyaashii dhaqaalaha deegaankeenna amnigiisii si fiican ayay sugan yihiin xuduuddii amnigeedii si fiican ayay sugan tahay taasna xasilooni ayay deegaankeenna u keentay waxaa kaloo xasilooni deegaankeenna u keenay iyadoo la xallinayo khilaafaadka ka jira bulshada dhexdeeda taana waad la socotaan dhallinyar ahaan in waqti badan iyo dhaqaalo badan iyo maskax badan la geliyey in bulshadeennu ay ahaato bulsho walaalowda oo khilaafaadka yimaada khilaaf uu iman karaaye si ay xilkasnimo ku jirto loo xalliyo oo xoog dhalinyaro kuwa culimo kuwa dowladeed kuwa ciidan la isugu tago in la xalliyo iyadoo habka loo xallinayo uu yahay hab ka duwan sidii hore ee madax garaac ahayd ka duwan oo ay tahay hab dood iyo hab cilmiyeysan iyo hab wada xaajood in lagu xalliyey khilaafaadkii badnaa ee deegaankeenna ee bulshadeena dhexdeeda ka jiray waxaas oo dhan keenaya waa iyadoo la haysto xoogag midaysan ama xoog dhalinyaro ha ahaado ama xoog ciidan ha ahaado ama xoog dowlad ha ahaado runtii haddaan xoogagaas ayna midaysnayn xaalkeenu sida uu ka duwanaan lahaa taas waa waxyaabaha xasiloonida ka dhaliya deegaankeenna oo si kooban marka loo soo dhigo waxaa garab socda arrintaas in la dhiso hay-adihii amniga ayaa garab socota waad ogtihiin hay-adaheenna amnigu way kala daadsanaayeen say u shaqaynayeenna way ka duwaneen sida hadda ay u shaqeeyaan way kala daadsanaayeen marka leena waxaa weeyaan booliiska oo kale xaaladda ku sugnaa waad ogeydeen booliis la kala diray oo la rafaadiyey oo la silciyey buu ahaa in dib loo soo nooleeyey waa laga shaqaynaya xukuumaddu waad ogtihiin booliiskii hore in la howlgeliyey in kun ku dhawaada tababaray haddana sanadkan 1,200 baa la soo xarayn doonaa booliis ku filan amniga magaalooyinka inay noqdaan ayaan rajaynaynaa waxaa kale oo dib loo soo lasii xoojiyey dhismaha ciidamadii xoogga gaarka ahaa oo ah tiirka nabadda ee koowaad ee deegaankeenna oo tiradoodiina kor loo qaaday ood ogtihiin kumanaan kun in lasoo tababaray tayadoodiina kor loo qaaday dareyskii loo hagaajiyey gaadiid fara badan oo 150 ah inta badan iyaga laga siiyey waxaan idinku bishaaraynayaa dhallinyaroy in ciidanka xoogga gaarka ayaan ku wada faanno lasii xoojin doono oo toddobaadkanna gawaari 150 ah ay iman doonto inta badan oo ilaa 100 ah ay ciidamada xoogga gaarka iyo hay'adaha amnigu ay yeelan doonaan waxaa kale oo jira qorshayaal badan oo lagu tayeynayo hay'adaha amniga sida in isbitaallo loo sameeyo iskuulaad gooni loo sameeyo guryo loo dhiso taasna waan sii wadi doonaa waana hay'adaha amniga oo dhan booliiska iyo ciidamada xoogga gaarka iyo maleeshiyaadkaba maleeshiyaadka hadda shaqaa socota waa kuwan birqod isugu tegaya iyagana waa nidaamkoodii baa la hagaajinayaa dib baa loo soo dhisayaa hay'adahaas waxay noqon doonaan hay'ado amnigeena ku filan hadduu ilaahay yiraahdo ayaan sida rajaynayno si guud waxaan rabnaa in ay dhalinyaradu ogaato in
ay mustaqbalkii dadkan iyo deegaankan yihiin waxaana rabnaa in ay ogaadaan in xukuumad ahaan aan rabno inaan idinka tagno dowlad ahaan ama xukuumad ahaanba dhowr shay inaan idinka tagnaan rabnaa maadaama la yidhi xooggii mustaqbalkaa tihiin waxa aan maalgelinayna maskaxdanada iyo waqtigan aan ku bixinayno inaad ogaataan waa laga maarmaan kow waxaan rabnaa markay noqoto arrimaha siyaasadda iyo masiirka ummaddan in aan idinka tagno baarlaman tayo leh oo masiirka ummaddan gacantiisa ku hayn kara intaan isla fahnay taasna waxaad ka garan kartaan dhallinyarada badan ee u soo xullay baarlamanka musharaxiinta aanu ka dhiganay ayaad ka garan kartaan in ay naga go-an tahay in laydinka tago dad masiirkiina lagu hadlayn karo mustaqbalkiina lagu hadlayn karo maadaama dhallinyarada ay wada garanayso dadka musharaxiinta ah taa inaad ogaataan baan rabnaa oo baarlaman masiirkiina uu gacantiisa ku jiri karo oo ay ka dhalan doonto dowlad adag oo shacabkan gaarsiisan nabadgelyo iyo horumar ay ka dhalan doonto baarlamankaas inaan idinka tagnaan rabnaa intaan isla garanay taas waa taas qodobka labaad idinka tagna waxaa weeyaan hay-ado amni oo adag oo kuwaan idiin sheegay ah oo aan ku hadlayn karno amniga deegaanka iyo gudihiisa iyo xuduudihiisaba taana inaan idinka tagno ayaan rabnaa dhalinyar ahaan waqti iyo dhaqaale iyo maskaxna waan gelinaynaa isaa u ogaada waxaa kaloo rabnaa inaan idinka tagno hay-ado cadaaladeed oo adag oo dadka dhibaatada dhexdiisa ah si xaqsoor ku salaysan sharciga u gudbin kara bulshada taasna way bilaabatay waxaa la odhan karaa dhankaas xoogaa waa laga soo yardaahay inkastoo sidii waagi hore jeelasha intii la iska dilo aragti xumaa tahay kanaa tahay aan hadda aan dadku halaag noocaasa ayna ku jirin oo taa laga raystay oo laga raystay tacaddigii ba'naa ee aynu wada garanayno laga raystay haddana dhanka madaniga dhulka guryaha waxyaabaha kale la isku haysto shacabka dhexdiisa hay-ada cadaaladeed oo ka bixi karo in la dhiso way ka go-an tahay hadda waa la isku wada bedelay deegaanka oo dhan taasi eexdii iyo waxyaabahaasay xalinaysaa laakiin waa lasii qiimayn doonaa oo in la tayeeyo oo dad cadaalad adeeg cadaaladeed bixiya inay noqdaan xukuumaddu way ka go-an tahay shaqadaas waa bilow laakiin hay-ad cadaaladeed oo adag in looga tago deegaanka waa qorshe xukuumaddan u yaalla weeye waxaa kaloo idinka tegaynaa dakhligii daraasad baa lagu sameeyey culays dhaqaalaha iman kara oo dalka ku iman kara deegaanka ku iman kara in ilaha dhaqaalaha intii la qeexo bal sidii adeega asaasigii uu mar walba usii jiri lahaa taana waqti iyo maskax baa la geliyey inaad saa ogaataan dhalinyaradu marka qodobkii ugu dambeeye weeye dhalinyarada waxa weeyaan waxay mudan yihiin in la maalgeliyo oo waqti iyo maskax la geliyo iyo fikir iyo dhaqaale intaba in la geliyo ayay mudan yihiin mar haddaan idhi waa xooggii mustaqbalka waxaan filayaa intaas waan isla garanaynaa in waxbarashadooda waqti iyo maal iyo dhaqaale iyo fikir la geliyo waa kuwii awaanintu ay hadda heesaha ka curinayeen ay ka heesayeen in la geliyo wacyigooda in kor loo qaado oo ay doodahan ka qayb galaan oo la tashado oo si wada jir ah collectively wacyiga bulshadu kor uu kaco waa in waxay u baahan tahay iyadana feejignaan gaara la siiyo waana in laga shaqeeyo weeyaan waxaa kaloo mudan in dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo oo ay dhalinyaradan oo intaasoo boqolaal iyo kumnaan kun sanad walba ay qalin jebinayso jaamacadihii iyo kollejyadii macadyada ay ka qalin jebinayaan in fursado loo sameeyo oo kuwa dowladdu ay toos u qaadan kartana ay shaqaalaysiiso ama ciidan ha galaan ama shaqo kale oo aan amniga ka baxsan ha qabtaan ama adeeg bulshada ha siiyaan taas waa mid in ay dowladdu shaqo abuur kale oo aan dowladda ahayn ay u samayso oo ayadoo kaashanaysa private sectorkii ama ganacsigii iyo xoogii kale ee dhaqaalaha iyagoo kaashanaysa in ay shaqo abuur sidii loogu samayn lahaa ayadana dowladda ay ka shaqayso oo ay sahasho in private sectorku uu kobco oo uu abuuri karo shaqo taasna inay dowladdu waxay ka geysan karto ay ka geysato way ka go-an tahay waana arrin u baahan in la sii xoojiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego mas-uuliyiin badan baa nala jooga oo su-aalaha aad qabtaan ka jawaabi doona marka hadalka saaxiibada hadday wax ku darayaan waa sax haddii kalena idinkaan idinku soo wareejinaynaa bal dhalinyaradu sida ay amniga uga qayb qaadan karto in ay culayska saarto waxyaabaha guud ee kale ee duruufaha jira ee dhalinyarada haystana marmarka qaarkood dad ku leexataan dhib ma laha
geestoodana dhalinyaradii kasoo qayb gashay kulankani ayaa soo bandhigay baahiyahooda aasaasiga ee dhalinyarada ayagoona uga jawaab celiyay mas'uuliyiintii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay kulankan qodobadii ay soo dhigeen dhalinyaradu in xafiis walba ka qaadanayo doorka uu ku leeyahay baahiyaha ay dhalinyaradu soo bandhigeen runtii marka sidan oo kale la isugu yimaado ee laga hadlayo arrimaha dhalinyarada waxyaabo fara badan baahiyuhu way baahan because waxa sheegatid wax kale ma kala garanaysid laakiin anoo soo koobaya waxaan si khaas ah u ataagayaa mas'uuliyiinta haddaan anagu nahay dhalinyar waxaan nahay jiilkii cududa kaliya ee dhan walba loo adeegsan karo walaa xumaan walaa samaan waxaan nahay jiilka kaliya ee bari kamaalin wax bedeli karaya waxaan nahay cududa kaliya ee loo adeegsan karo inay midnimada iyo horumarkaba ay kaalin weyn ka qaadato su'aasha meesha taagan waxa weeyaan ma jirto qof ama geed iska baxa isagoo xidid la'aana annagu waxaan nahay dhalinyar dhammaantano waxaan ka soo jeednaa mansab iyo meeqaam waxaan u baahannahay inaan si aan beri kamaal waddankeena aan wax ugu qabanno inaan helno dhiirigelin maanta wiilka yar ee dhalinyarada ah ee iskuulka dhigta hadduunan haysan waxbarasho adag oonan 10 assignment loo soo dhiibayn oonan caaw wuxuu ku mashquul haysan oonan maaweelo u taga u haysan oonan meel uu ku firaaqadiisa ama maskixiyan ama aan maadi uu ku taga haysan oo waxbarashada dhisnayn oo maaweelada dhisnayn oo dawladda moral ka haysan maxaa ku jaban maxaa sadiiday inuu jeeno group noqdo because ma haysto wax dhiirigeliya laama amniga markaan soo laabto xafiiska shaqo ma jirto waxbarashadii ma adko nabadgelyada iyaga iyo askartu way kala xanaaqayaan marka maxaa diiday inuu qofkii dhalinyarada ah uu jeeno group noqdo ugu xudoono sameeyo maxaase idinka qorshaysa ka mas'uuliyad ahaan midda labaad waxaan isagana si gaar ah oo ugu leeyahay laamaha amniga ama xafiiska hoggaanku hor taagan yahay maanta dhalinyarada waxaaba laamaha amniga iskaga qaldan kii dambiga galay iyo kii aan gelin oo wixii sidoo gudoomiye Cabsalaan sheegay khayr Allah siiye ma kala soocno ee kolba kii kuugu dhaweeya laamaha amnigu tahay inay iska saxaan oo qofkii nadiifta ahaa hadduu maanta kii kala dambiga galay isaga loo xaday isagii baa codad qaadayo de wixii kii kala loo sii gelaya marka inaan ficil la isgelin oo dhalinyarada ficil la gelin dhalinyaraduna si ay u mashquusho wax xafiiska waxbarashada ka dhiso xafiiska shaqo abuur ha u sameeyo xafiiska dhalinyarada maawalida ha sameeyo xafiis kasta wuxuu kaga aadanaa waxbarashada aad geyso shaqo abuurka dhalinyarada shaqo abuurka si saami qaybsiyo oo xaq ah ugu samayso nabadgelyadu cadaaladda ha ku shaqeyso xafiis walba kaalintiisa markuu soo baxo lama helayo dhalinyaro wax dhigta waa xaqiiq Cabdisalaam iyo siday gabadhu sheegtay waa waxyaabo badan oo suurtagal ah oo waxyaabaha ay sheegeen ka jira way jiraan laakiin bal dhinaca inagu Soomaali markaan nahay mar walba negative baan ku salaynaa aragtideena bal dhinaca positive ka inagoo ka eegayna waxaan idin xasuusinayaa hal tusaale ah shalay jigjiga markay dhalinyaradu saafafka wateen ma lacag baa lagaga dhigay ma shaqo abuur inta loo sameeyay bay ku dhigeen way dhalinyaradii awaarayaasha garab casayowga maxayga loo oran jiray ma lacag baa lagaga dhigay ma shaqo abuur baa loo sameeyay waa maya ma wada shaqaale dawladeed baa laga dhigay waa maya marka u horeysa attitude-keena jigjiga adaa iskale amnigeedu hadduu xumaado haddaad jana group noqoto haddaad xashiishad cabto waa inaad marka hore dareento horta yaa wax noqonaya kow adaa wax noqonaya gunno laynagu siin maayo inaan amniga caasimadeenna ilaashano in garoon laynoogu samayn maayo inaan amniga caasimadeenna ilaashano laakiin waxaa ka horeysa nafteenna inaan ogaano inay muhiim u tahay tusaalaha ugu fudud iyadoo faasasku dhalinyarada jigjiga ay wataan baa waxa la sameeyay wax la yiraahdo on recommendation ahaan u soo jeedin lahaa marka u dambaysa dalladii dhalinyaradii sameysay wayna dhex fadhiyaan waa hoggaanka nabadgelyada maanta councilka asad xubnihii dambe federationka dib kaga soo gaaray uu kamid ah wiilka commentatorka daadiinaya nacam waxa idin sheegayaa waxyaabahan waynu u baahannahay dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo waa muhiim dhalinyarada in cadaalad falo waa muhiim dhalinyarada hay'adaha amniga iyo iyaga xiriirkooda in la joojiyo waa muhiim dhalinyarada maxay hay'aday jaana groupka lagu tilmaamayo way danqaysaa laakiin dhalinyaradani ma aha Soomaaliland kama soo guurin Puntland kama soo guurin waxaan ka wada meelahan dariskeena kama ina iman nooma soo guurin
waa dhalinyaradii nawaariga ahaa ee deganay jigjiga ee ku dhalatay ee intaa ku leekaatay kaliya noloshii bay ka dhaceen waxaan u baahannahay si nolosha ay ka dhaceen loogu soo celiyo in iyaga lala hadlo maleedihiin wali cid la hadashay hadday noqoto hogaaminta dhalinyarada hadday noqoto hogaaminta hay'adaha amniga ma waraysateen innagu waa inaan muhiimadda saaro laakiin innagu maxaan qabanay qofka dhalinyarada ururaa jira arrimo voluntary Etoobiyada kale waxay nagu dhaantaa waxay sameeyaan ururo voluntary organizations abay sameeyaan innagu bal maxaan isku abaabulay kajana groupka laftirkiisa intaynu abaabulno ama dhalinyaradu abaabusho ama xafiisyadu abaabulaan ay qusaysaa oo la isku xidho ma laga dhigo urur si voluntary bal horta isagu jigjiga wax u gashada su'aalaha ugu fudud dhalinyartu waxay leeyihiin meel loogu soo hagaagay ururada deegaanka ka jiray hoggaanku waxa rabaa xafiiskaagu intaad iskugu yeertay dhalinyaradii sidee wax ku qabanaa nabadgelyada kaga shaqeyn kartaan ma sameysay xafiiska ma u furtay oo ma la fariisatay waxyaabaha ay qabtaan iyo howlaha ay ku dhex jiraan ma kala tashatay eva intii aad xafiiska ku sugnayd taasi waa su'aal siduu sheegay cabdisalaan federationka wuxuu yidhi qof walba meel baa lagu xiraa annaga ay naga mid yihiin dhalinyartu mana awoodno qofkii wanaagsanaa waxaa ku jiray mid ka mid a dhalinyaradeenii ugu actifsanaa samafalka ka shaqaynayay bishii ramadaan asagoo jaamacadda ku jira imtixaanka ku jira intaan u yarnaa waxaan dhehayna kaale qof baa bukaan oo jooge aan caawinne asagoo hoosha u soo jira inta dhexda lagu qabtaa la xiray markaa halkaa tagnana meelaan ugu hagaagno ma lihin wasiirka dhalinyarada ma dhihi karna kaale wasiir adaa xafiiska noo joogay noo tag oo wasiirkeeni halkaa uma dirsan karno taasna waa isku xirnaansha la'aanta annaga dhalinyarta haddaan nahay gaar ahaan hogaamiyeyaashii dhalinyarta haddaan nahay ururadii annaga iyo hoggaankii nabadgelyo horta iskuma xirnino isku xirnaashadii halkaasi ay ka baxday taas waaye tan labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo maayirka waxaan hadda ku jirnaa annagoo dhalinyaradii deegaanka ah dhalinyarta deegaanka annagoo waxaan ku jirnaa barnaamij nadaafi gurigaaga ah bilicda deegaanka oo dhan baan rabnaa inaan qabanno horeyna raxmaan muuse good waxay u sheegtay inaan laamiga dayactir ku samaynayno ranjiyeynayna taas keliya kuma ekin aftirkiina annagaa samaynay ugu horreeyay deegaanka aftir wadareedkii ka qabsoomay annagaa samaynay dadka waxa wanaagsan samaynayo waa annaga kuwa waxa xun samaynayana annaga naga soo baxaan haddii hal qof oo jayngaruubana laga dhaxayla macnaheedu ma aha inaan annagu oo dhan xudnahay laakiin waxaan la'ahnaa cidna hogaamisaay su-aasha kale waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka dhalinyaradu waxay u hanqal taagayaan sportiskaynu ma lahan heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad cabdisalaan wuxuu yidhi garoon aan leenahay garoomo kale ha noola samee war maxay ku nuugtaa maxayse ka nuugtaa kanaanba waxba lagu qabanno halkaa yaalle ma lihin heerka koowaad iyo heerka saddexaad wuu joogaa xaaji federationka sportiska maxaa u qaban la'nahay miisaaniyadaa la leeyahay hadda ka hor aan tagnay xafiiska oo waxaan dhahnay waa in dhalinyarada loo sameeyaa sportiskii horka koowaad heerka labaad heerka saddexaad qofka akhlaaqda xun heerka koowaad iyo heerka labaad heerka koowaad iyo ku hareeyaa heerka saddexaad iyo heerkaas ma soo gaarayo soo marka wuxuu u baahan yahay sportis tayo leh sportisku inuu xero dad u xero noqdaayo ma aha ha la furo dhalinyarada ha loo furo taasi waa taas waxaan rabaa inaan laba su-aalood weydiiyo xukuumadda sharafta leh ee hor fadhida anigoo ku hadlaya magaca dhalinyarta deegaanka rag iyo dumar su-aashayda koowaad waxa weeyaan dhalinyartu waxay caaqil ku yihiin in la tuso dhaqankoodu waxay tahay boqolkiiba 99 dhaqanada la sameynayo waa dhaqanno reer galbeed maxay dawladdu ugu sameyn weyday meel aan ka akhrisana dhaqankii Soomaaliyeed ee toosna meel lagu soo daafuro dhaqanka islaamka iyadoo la rabo in lagu soo in garaadkayga aqooneed inuu sareeyo waayo maskaxda waxa ballaadhiya waxa weeyaan diinta iyo qofku inuu yeesho aqoon dawladdu ma aha shakhsiga la xirayo in dhaqankiisa lagu soo celin karo jeel laakiin qofka waxa dhaqankiisa toosin kara in la tuso cidda uu yahay iyo meesha uu ka soo jeedo su-aashayda labaad waxa weeyaan shaqo abuurka dhalinyarta deegaanku
boqolkiiba 99 waxay u badan yihiin dhalinyaro waxbarata ilmaha tobnaadka ah ee arkaya walaalkii oo soo qalin jabiyay PhD oo bunka iska dul fadhiya sidee bay u dhici kartaa inuu ku dhiiranaado waxbarashadiisa inuu sii sarreysiiyo sababtoo ah waxaa cadaalad waayay ka soo qalin jabinaya PhD-ga isagoo u waaya cadaalad fursadda waxbarasho ee uu soo bartay inuu ku guulaysto marka dhalinyarta waxaa leeyahay caqabadana haysata ee keenaysa ilmuhu inuu wuxuu sameynayo iska sameeyo إلا لا يحي عد قرب لغوسي سعيد عن هاي ويا دليرت وحي وباهي قرب لغوسيو دقن كون دينيد يا دقن كصوماليد يا هاين وحال ربا إن لا تلمامو أي دولة لا تلمامتو ديغان كينا نقولان لكن المحو هدي وآمنو ديغان كينو كويا هي سوغليتي وحو دقما يا سيدي سوغليتي وكله marka dawladda sharafta leh madaxda anigoona kala qaaday waxaan ka codsanayaa in dhalinyarta loo sameeyo dhaqan celis ah in deegaanka iyagu leeyihiin wayna cid kale lahayn marka aan eego shirkan muhiimadda uu leeyahay haddaan ku horeeyo shirkani muhiimadda uu leeyahay waa muhiimad aad u ballaaran waxaan rajaynayaa inuu joogto noqon doono ay isku xidhnaan doonaan dhalinyarta deegaanka iyo xafiiska nabadgelyadu guud ahaan sektorka nabadgelyadu ay isku xidhnaan doonaan ayaan rajaynayaa marka xigta su'aalo badan oo la xidhiidha xagga dhalinyarta iyo shaqo abuurka ayaa guriga ka soo yeedhay hase ahaatee intaanan intaa gudagelin ama aanan ka jawaabin waxaan eegayaa nidaamka hore ee dhalinyarteennu ama guud ahaanba deegaankeennu ku sugnaa xagga shaqo abuurka iyo isbeddelka kadib maxaa dhacay haddana maxaan rajaynaynaa ama aan qorshaysanay inaan dhalinyarta aan u qabanno marka hore markaad eegto dhalinyarteennu waxaa dhalinyar aad u firfircoon wax qabsan kara isla markaana dhalinyar wax baratay inaan haysanno ayaan aad ugu rajo weynahay oonan hubaa maadaamaan deegaanka in badan macallimad ka soo ahaa dhalinyarta Soomaalidu waa dhalinyar aad u firfircoon oo wax qabsan kara ayaan aaminsanahay dhalinyarteena waxa lagu xus jiray inay ay yihiin dhalinyarta ugu maamuusta badan ama akhlaaqda badan maanta laakiin waan yaaban aniga laftigeyga yaaban marka inaad aamustaan aad dhageysataan waxa ka soo baxaya su'aalaad rabteen inaad jawaabteeda hesheen ama jawaabtii aad ku qanci weydeen marka haddaan ku soo noqdo fikirkayga marka dhalinyartu isbeddelka ka hor aad waqti 10 sano ah dhalinyarta maxaa ku dhacay dhalinyarta waxa ku dhacay tacadiye badan oo maskaxiyan ah in dhalinyarta akhlaaqda laga lumiyay isla markaana ay dhalinyartii ay shaqaysan waayeen ama mashaqaystanimadu ay nagu soo badatay ay yihiin dhalinyar ku tiirsan dawladda oo kaliya waxay dawladdu ay ama la magacaabo ama la shaqaaleysiiyo ama waxay dawladdu ay soo fidiso inay sugtaan ayaa maskaxda iyadii wada qaatay taasi waa ta hadda lala rafaadsan yahay baan leeyahay anigu xagga shaqo abuurka haddaan u soo jeedsado xagga shaqo abuurka dawladdii ama isbeddelka ka hor waxay ahayd dad khaas ah ayaa ka faa'iideysan jiray dhalinyarna aan ahayn laakiin haddana dad khaas ah isbeddelka kadib wax yaroo isbeddela wuu jiray xagga dhalinyartu ay ka faa'iideysatay haddaan eegno laakiin nidaamka lagu waday shaqo abuurka ee ahaa maxay ahayd policy buu leeyahay shaqo abuurku deegaan ahaan iyo dal ahaanba shaqo abuurka waxa la siiyay muhiimad gaar ah khaasatan dhalinyarta in muhiimad gaar ah la siiyo taas caqabado badan baa ka jirtay anna waan qirayaa inay dhaliilo badan ay ka jireen marka maxaa xal ah ayaa la isla qaatay dawladda waxaa ka go'an in nidaamkaas la saxo isla markaana tallaabadii ugu horeysay waa la qaaday waana la saxayaa dhalinyartu inay ka faa'iideystaan shaqo abuurka guud shaqo abuur markaan leenahay waxyaabo badan baa soo hoos gelaya kow maaha dawladdu lacag ay bixiso kaliya inaad maskaxda ku haysataan ma ama dawladdu shaqo abuur ha samayso marka la leeyahay shaqo abuurka lacagta yar ee wareegtada ama revolving fund la yiraahdo ee yar ee deynta la siinayo kaliya ma shaqo abuurku badan yahay deegaankeen waa deegaan dihin ama deegaan barwaaqo leh resource badan ama leh deegaan aan wali laga faa'iideysanin weeyaan sektarada aan ka faa'iideysanayno inaan marka hore cilmi baadhis ku sameeyno ayaa loo baahan yahay taana waan qaadanay oo annaga xafiis ahaan in cilmi baadhis lagu sameeyo dhalinyartu xaggee ka shaqo geli karaan shaqo abuurka xaggee looga sameyn karaa la yiraahdo sektaradan xoogga saari karno
sanadkii hore 2013 haddaan eegno sanadkii hadda aan soo dhaafnay shaqo abuurka la sameeyey waxoogaa isbeddel uu ka jiray lacago badan baa baxay oo shaqo abuurka lagu bixiyey haddana stiil dhalinyartii ka faa'iidaysigiisu weli way liidataa laba arrin baan u kala qaadayaa dhalinyartu marka ay shaqo abuur loo sameeyo nidaamkii shaqo abuurka uu dhigayay ma isticmaalaan lacagta dawladda waxay u arkaan ama shaqo abuurka loo sameeyey inay tahay deeq taasna horumar kuma gaadhayno in deyntii la soo celiyo waa kow nidaamka shaqo abuurka kow ka ah taasina caqabado badan baa ka jira inaan sixi doono aan rajaynayo annagu go'aan aan qaadanay in la sixi doono hadafkeena labaad waxa weeye dhalinyarta in sektarro kala duwan shaqo abuur looga sameeyo tusaale ahaan private sectorka ama goobaha shakhsiyaadka loo leeyahay ee deegaankeena hadda waxaa jira dhismayaal badan oo ka socda waxaa jira horumar badan oo ka socda meelahaas inay deegaankeena dhalinyarta deegaankeenu ay ka faa'iidaystaan waa inay dawladdu ama annagu aan gogol xaadh aan u samayno oo dhalinyartii waddadii ay mari lahaayeen ee uga faa'iidaysan lahayn loo nidaamiyo taasi waa kow ta labaad beeraan leenahay webiyaan leenahay beerahaas iyo webiyadaas seen uga faa'iidaysanaynaa dhalinyarta wax bartay waxay barteen say u apply garayn karayaan ay shaqadooda u qabsanayaan ama wax u heli karaan intaasoo dhan in la dul istaagaa loo baahan yahay marka ka shaqo abuur ahaan annagu dhowr sektor baan xoogga saarnaa kow waxaa ka ah beeraha miyiga iyo beeraha magaaladaba dadka miyiga ku nool dhalinyarta miyiga ku nool beeraha miyiga inay xoogga saaraan sida xoolaha iyo wixii xoolaha la halmaala iyo dhulkaba dadka magaalada ku nool beeraha magaalada la yidhaahdo ta labaadina waxa weeyaan sektorka warshadaha yaryar deegaankeenu warshado maleba guud ahaan wax warshada ay leedahay deegaankeenu ma jiro marka warshadaha yaryar inaan ku soo kordhino way naga go'an tahay iyo adeega guud isla markaana projectiyada waaweyn meelahaasaan sektorkaasaan xoogga saarayna dhalinyartu intaa maxay ka faa'iidaysanayaan maxaa qorsho u yaalla haddii la yidhaahdo waxaan aaminsannahay dhalinyarta deegaankeenna waxaana qorsho noo ah 75% inay dhalinyartu ka faa'iidaysato waxaan maanta shirkan u qabanayna waxa weeyaan dhibaatooyinka dhalinyarada haysta xalkooda si loo heli lahaa qaybo ka mid ah marka shirkan wuxuu noqon doonaa waxa weeyaan shirkii ugu horreeyay shirar badan oo daba socdo xal loogu heli doono dhibaatooyinka dhalinyarada haysta ayaa jiri doona annagu ka xafiisaan kulle culayska ugu badan xafiiska uu saaran yahay ayaanu nahay fursad gaarana way noo ahayd shirkan oo kale inaan helo oo xafiisyadii bahwadaagtu ay noo dhammaystiran yihiin hadday hawlihii shaqo abuurka noqoto iyo hadday noqoto xafiisyadii kale walow xafiisyada qaarkood ay ka maqan yihiin xafiiska dhalinyaradu sidiisaba shaqada u taalla waxa weeyaan ma ahin gidaar la dhiso ama tuumbooyin la isku xidhxidho waa qof bila'aadan ah in la jiheeyo weeyaan shaqada u taalla qof bila'aadan ah in la jiheeyana waxay u baahan tahay in loo howlgalo si cilmiyeysan in dhaqaale iyo waqti iyo maskax loo huro marka hawshaas haddaan si guud looga wada qayb gelin oon qoyskii uun ka qayb gelin dugsigii uun ka qayb gelin jaamacadii aan ka qayb gelin institutionadii kale ama xarumihii dawliga kale aan ka qayb gelin xal looma helayo marka maanta fursad gaar ayay noo ahayd inaanu isku helno dhibaatooyinka dhalinyarada haysata bahwadaagtii si guud ahaaneed ay waxa weeyaan khusaysay marka kulle xafiisku sanadkan waxa weeyaan wuxuu soo qabtay shaqo waxa weeyaan dhinaca tabarucaadka dhalinyaradu shaqo aad muhiim u ah ayay soo qabteen oo ay ugu horeeyaan dhalinyarada hor fadhida ururada waxa weeyaan dhalinyarada tabarucaadka iyo dhalinyarada kaleba soo markii dhaweed sheegayay gudoomiyaha taakulo waa inta kaliya aan diiwaan gelinay hawlaha tabarucaadka shaqada laga qabtay marka lacag loo bedelo more than waxa weeyaan maaragtay 30 million waxa weeyaan 3 million in la badbaadiyo lacagaha waxa weeyaan la badbaadiyeyna waxa weeyaan shaqooyinkii dhalinyaradu qabanayay si guud ahaan oo lacag loo bedelay inay noqoto 30 milyan lacagii maaragtay hawlihii la qabto lacag loo bedelo waa inta aan diiwaan gelinay oo kaliya waxaan aan diiwaan gelin way badan yihiin sanadkan waxaan noo qorshaysan hawlihii tabarucaadka inaanu beri bilowno haddii la yiraahdo hadday dhiig shubid noqoto hadday olol nadaafad noqoto hadday noqoto waxa weeyaan wacyigelintii kala duwaneyd waxaanan aaminsanahay 100% dhalinyaradu sidii sanadkii hore si ka fiican inay uga qayb gali doonaan marka wacyigelinta iyo abaabulka dhalinyarada waa la joogteen haddii la yiraahdo
dhinaca xarumaha dhalinyarada kolley deegaanku si guud ahaan xarumaha uu leeyahay uu kooban yahay waana hawsha aan bahwadaagta ugu yeedhnay qayb bay ka tahay magaalada Jigjiga oo caasimadii haddii hal xarun la leedahay oo dhibaatooyin badan ay haysato xaruntaasi magaalooyin kale ka sheekeynayna marka magaalo kasta iyo degmo kasta dhibka yaalla waa dhib gudoomiyaha iyo maayarka magaaladu inuu xaliyo laga rabo xafiisku dhaqaale ahaan wuxuu haysto way kooban yihiin laakiin haddana sanadkan iyo sanadadan isbedel kadib aad baan u dhaanaa sanadadii hore miisaaniyadda waa la kordhiyey waxqabadka garoomo cusub in la qabto ayay noqotay xarumaha dhalinyaradana in wax laga qabto xarunta dhalinyarada Jigjigana dhibaato guud oo haysatay way soo jirtay dhibaatooyinkana wali way sii socdaan sida uu kooban haddaan u sheego xarun xaafada dhex degan yihiin meelaha aan munaasab ku ahayn in la sheego magacdooda ay ku dhex yaalaan oo nidaamkii hore jiray uu siiyey dad aan munaasab u ahayn walina dhex degan yihiin dee dhibaatooyinkeeda lama sheegi karo marka xarun dhalinyar oo maaragtay waxaas oo dhan ay ku hareeraysan yihiin iyo dhibaatooyin hadda jiro oo waxa weeyaan qayb ay ka yihiin waxay u baahan tahay xal waara in laga gaadho xafiis ahaanna hadduu ilaa yidhaahdo kolley dadaal badan waan wadnaa aanu waxa weeyaan xarunta dhalinyarada ku xoreynano dhibaatooyinka sii jiray iyo wixii dambe soo kordhayaba inaan ku xallinana aan samayn doonaa xarumaha guud ee dhalinyarada kolley deegaanka ka jira sanadkan mid baan dhisnay hadduu ilaahay sanadka dambe inaan mid kala dhisno maamul magaalooyinka iyo degmooyinkana waxaan ka rajaynaynaa inay meelo badan oo kale ay dhalinyarada u dhisaan markaynu soo noqonno xagga tartanada horyaaladii hadday noqoto horyaalkii deegaanka iyo horyaaladii gobollada iyo kii magaalooyinka insha allahu tacaala sanadkan maanta sanad miisaaniyaedkii dhowrka maalmood aan kaga jirno waan bilaabi doonaa hadduu ilaa yidhaahdo dhalinyaradeenna xirfadda ciyaaraha kala duwan leh ee u shaqo tegaya deegaanada aan jaarka nahayna waxaanu rajaynaynaa inay maaragtay kooxaha deegaanadeenna ay u shaqo tagaan ee mushaar ka qaataan xafiiska isboortiguna ciyaaraha waxa uga shaqaynaya ma aha madadaalo inay xirfad shaqo ay noqoto sidaa iminka dhalinyar badan ay ugu shaqo tegayaan kalabyada deegaanada aan jaarka nahay ama dalalka aan jaarka nahay inay kalabyo deegaankeenu leeyahay waanaan u mahadnaqayaa ciidanka gaarka ah oo ah kilabka keliya ee mushaar qaatay ee xirfadlayaasha ciyaaryahanadu ay waxa weeyaan ka jiraan hal mar iigu saabeeya ciidanka gaarka oo Zakariya nagala joogo waxaan rajaynayaa booliska iyo kuwa kale badanna inay kooxooda asaasi doonaan walow boolisku uu leeyahay kooxaha ciyaaraha qayb ka mid ah kubadda cagta iyo qaybaha kalena inuu waxaan rajaynayaa inay bilaabi doonaan deegaanku inuu yeesho kooxo loo shaqo tago ma aha xirfadda iyo waxa weeyaan ciyaaraha un lagu soo bandhigeen inay xirfaddu noqoto takhasus billions iyo millionska dunida sa looga keenayo mustaqbalka fog aan uga keenno dadaalkeeda waan wadnaa goobaha ciyaaraha inaan wax badan ka qabanno waan rajaynaynaa goobaha ciyaaraha waxa weeyaan ee hadda la dhisayo kolley maamul magaalooyinka 3 maamul magaalo hadda ka wadna marka hore garoonka Jigjiga oo kaliya ayaa jira hadduu ilaa yidhaahdo sanadadana inaan kuwa kale dhisi doono ayaan rajaynaynaa shirkan oo ahayn kii koobaad ee lala yeesho dhalinyarada deegaanka ayaa waxay xukuumaddu marar kala duwan la yeelatay dhalinyarada shirar lagaga wada tashanayay sidii dhalinyarada deegaanka loo horumarin lahaa iyadoo mararka qaarkood dhalinyarada deegaanka loo sameeyo shaqo abuur daawadayaal intaas waxaynu ugu eeg barnaamijkeenii dhalinyarada waa dhammaanteen oo isku duuban oo idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh